reer Somaliland oo maanta waxa aan rabaa hal iyo laba inaan ka yiraahdo xukuumadda hadda Somaliland ka talisa ee kulmiye iyo mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland marka waxa aan rabaa inaan muuqaalkan ilaaba ku gudaariyo aad dhuuxdid waxa aan ka hadlayo kadibna aad fahantid fikirkaagana aad commentiga igu soo qortid oo igu tiraahdo waa qaldan tahay amba waa saxantay maanta oo kaliya igu qaado haday doonto caadifadu ha ku qaado qabyaaladu ha ku qaado isoo waxa doonto samee laakiin waxa rabaa muuqaalka inaad dhadhamisid oo aad fahantid waxa aan ka hadlayo iyo waxa aynu galeynaa doorashadii Somaliland November ayaa la galayaa 2 bilood oo kaliya inay ka dhimantay ayaan u maleynayaa doorashada Somaliland iyo xiliyadan oo kale indhaha caalamka oo dhan ayaa ina eegaya sababtoo ah waxa aynu sameynaa wax aanay Soomaali sameyn waxaynu nahay dadka Soomaaliyeed ee fartoodaas madaxweynahooda ku soo saara ilmaheena ugu yar ilaa kooda ugu weyn masiirkiisa isaga ka taliya ciduu doona ayuu soo saaraa ciduu doonana uu ridaa niyo xiliyadan kale indhaha caalamka ayaa ina eegaya ictiraafka aynu raadinayno meelaha aynu ka dhadhamino waa meeshan oo kale maalmahan oo kale way maalmahan oo kale waxayna laga rabaa ilmaadeerayaal inaynu mid noqono oo aynu dad midaysan ahaano sidoo kale waxayna laga rabaa inaynu isku tanaasulno oo isku hambaliyano kii badiyo kii laga badiyaba maalmahan oo kale dadka Somaliland inagu la jira inaynu kicinana laga marabo dagaal iyo buuq ma rabno niyo maalin dhaweyta Erigaaba waa ogeydin sida wax u dhaceen waan eegaya kamana soo hadal waxaan arkayay in dagaal laga wada Erigaaba la rabeena inuu meeshaas dagaal ka dhaco dadka deegaankaas wada deganaa islaayaan baa la rabay niyo dadkii meeshaas deganaa masiirkooda ayay ka taliyeen nabad bilaa shuruud ah ayaanay qaateen labada dhinacba waxaanay dhaheen nabad annaga wada degan wiil iyo abti ayaynu isku nahay nabad baynu wada qaadanaynaa meeshana amni ayaynu ku wada deganaanaynaa bay dhaheen niyo waxaan arkayay wallahi been ku sheegmay dad geebile jooga oo halka dagaal ka horinaya oo raba in dadkaasi isku madhan wax ay ka faa'iidayaan xagga dabaayad ka ogaan doonta niyo falillaahi alxamdu ilaahi baa dadkaas burcad isku mariyay dhexdooda waa heshiiyeen dagaalkaasina waa dhici waaye wax kasto laga rabaaba ha jiraan be niyo maanta markii la xiray Maxamed Abiib oo ah xildhibaan golaha wakiilada Somaliland ku jira oo ah nin xasaanad leh markii maanta airportka lagu qafaashay ee la afduubtay ee ilaa iyo hadda la garaneen meesha lagu xiray wax badan baa soo baxay timir laf baa ku jirta ilmaadeerayaal wixii aan ku fikirayay maalinkii dagaalka Erigaaba la carcarinayay wixii aan ku fikirayay ayaan hadda xaqiiqsaday niyo وانا تلا رب reer Somaliland oo inaad ku baraarugsanaataan waa hadii aad tahay muwaadin dhaba ilmaadeerayaal adigoo madaxweyne ah amba xukuumaddaadu ay meesha ka taliso nin xasaanad leh oo xildhibaan ah oo ay dad soo doorteen oo dad dhan hogaamiye ah oo dadkaas kugu kicin kara oo dadkaas ka kicin kara inaad inta soo qabatid isagoo airportka ka soo degay aad qafaalatid oo ilaa iyo hadda aan la garanayn xataa meel aad ku xidhay oo la soo booqan karin xarunta CID da lagu xidhay baa leeyahay xarunta CID da Cabdiraxmaan Cirra qabtay uu soo waayay meel allaala meel lagu xidhay ninkaas lama garanayo xarig balaas baadil ayaa ninkaas loogu daray niyo qalad baan u arkaanay ninkaasi wuxuu ka soo jeedaa meel baryahanba wax tabanaysi waa reer Boorama حقنا وأوليه إنه واحد تبتان أنا جوا الصومالية ومركينو كجوعيني دي وحبينو كتبانيني الصومالية مركينو كجوعيني أنا جوا واحد تبانينا مركي وحي أهربنينا للسين واي أينو كجوسنينو ضل ميل تاجن أينو نقلنا إلا يهدنا تيبينو كتاجنا نيو وحي أدي رك أوجلان وذي برهرة إن أدي رك وحسكو قصيب تقلد وي رجعس وحبيت تبانيان لباتوين أيه تبانيان عدالة الرأي تبانيان إن هذا حلي بنذوذ اللي قفاشو ني أنا قلت بانو أركا نينك وحا سمينا يانا وما أركن نيندا أطرايا دالكن يما تغانايا دادكن ميشا كنو موسى بيحي إني كسور دماتي أيانيga إيسو بحضي موسى بيحي مادامو أي كسور دماتينا وحا إيسو بحضي إنو نينكاسي سمينا يو وح والبا أو دورش داس ديبو قد عيسو رير لاسعانو دي يضو الله هدلي كراي هذا الوح لقو دامين كراي حبت بالوغو بلاوة سيدي باكو تغين reer Boorama tiiba meenta taagan yihiin way carcarayaan ragna niyo hadii la iskalo nin ma xukumi karo runta hadii la isku sheego waxba la wada leeyahay xuduud iyo dastuur baa la wada dhigtay niyo hadii xuduudda dhinac u dhaafsido waa la isgalayaa musabixiyo xuduud baa lagu dhigay dimuqraadiyad baa sheeganaysa iyo dastuurka asidata wuxuu sheegayaa nin xildhibaan ah inaana taaban karin waliba aanad ku xiri karin hadal uu dhahay على دي ترى حرية القول بلا دي ترى قفك بلا آذن كان الشعب كابا حرية القول الصيا
adiguna waxaad xidhay nin xasaanad leh oo dad soo doorteen oo ay dad saa u eeganayaan reer boorama reer awdal oo dhan ayaa ninkaasaa u dhaadanaya reer somaliland oo dhan xataa anaa taageera ninkaas markaa muuse biixi waxa uu samaynayo niyoma turist dalba mise waa carcarin doorashada dib loogu dhigayo waa kaalayo dagaalina gala bal ilmaadee reyaal caqligiina saliimka commentiga igu soo qora iyo fikradiina isoocay waa ku ogay waxaas ma kuu muuqdaan wajigeen kaliya kuu muuqda maxaa kugu samayn karaa caqli saliima kusoo fikir ani iga bayd anigu wixii aan arkaan ka hadla ama rayigaaga ka hadal adoo ani isoo abaarin waxaas ku saxaya Muuse Biixi waxaasna ku khaldeen niyow ninka nin xasaanad la xidhay ee weliba xadhiga kala duwane ilaa iyo hadda la garanay ninkaas meeshuu geeyey maxaa ka dhihi ade makaa calool adeegi ninkaas miyaa dad u turaa waa mayte marka meeshan waa la wada leeyahay hadday samaroonta hadday isaaqtay hadday gabooyo tahay hadday dad kaloo dega tahayba xuduud baana inoo wada dhaxaysa xuduudaasina haddii lasoo dhaafo nin uma talin karo warka cad marka ani sheego marka bal fikradiina commentiga ku soo qora. Assalaamu calaykum.